wasiirka arrimaha gudaha wasiir cabdi wasiirka caafimaadka wasiir Dr. Cabdiwali wasiirka xanaanada xoolaha wasiir agaasimaha guud ee madaxtooyada galmudug Cusmaan waxa la ku soo dhawaada degmada Baxdo waxa joogta bulsho idin heeloon idin soo dhaweynaysa laab furan soo dhaweynaysa aad dowladnimada iyo jiritaankeeda ku soo dhawaada waxa joogta degmada Baxdo waxa la yiraahdo waa laas halkeeda waxa rabaa inaan sheego insha Allah odayaasha ka taariikhay doona taariikhdeeda marka insha Allah taala waxaan ku soo dhawaada degmadan oo bulshadiina hore ay joogto sida quruxda badan maanta ay u soo dhaweyseen degmada Baxdo oo dhabaantii aniga shakhsiyan ay tahay maalinkii koowaad degmadan aan imaado marka labaad waxaan ka mahadcelinayaa sida aad isku wacyigeliseen oo talaalkii cudurka COVID-19 aad u qaadateen culimada tusaale u ahayd ku hogaamisay dhammaan shacabka reer Baxdo inay qaataan talaalkii arintaas ka wasaaradda caafimaadka galmudug way idinkaga mahadcelinaysaa waxyaalaha maanta meeshaan jeerayna ka mid tahay aad baa iyadana ugu mahadsantihiin midda saddexaad reer Baxdo waxaan u malaynayaa 2 jeer horaan kulannay culimadooda iyo maamulkooda anoo wadanka ku cusub joogaan saragnay waa idinka soo daahay mar hore inaan idin imaaday ahayd waa ka cudur daaranayaa taas iyo inaan mar hore idin imaan waayay laakiin maanta waa idila joogaa ka wasaarad ahaan waxaa degdeg ka maqashay iyo waxaan indhaha ku aragto way kala duwan anagu maanta aan aragno iyo deegaankan iyo degmadan weynanka badan iyo wixii aan idinka aaminsanayn oo maqalkan ugu ahaa waa wax aad u kala fog wasaaradda caafimaadka galmudug waxay ballan qaadaysaa laga bilaabo maanta inayna qolo dambe ina u hoos tegi doonin caafimaad hadduu ilaahay yidhaahdo sida ugu dhaqsaha badan anagoo kala kaashanayna culimada iyo maamulka degmadaba waxaan idin soo magacaabi doonaa isku duwaha caafimaadka ee degmada Baxdo haddii la marka labaad Baxdo imaanshahayga kaliya ka soo daahay ma ahan adeegay kama soo daahin waxaan u malaynayaa markii koowaad inaan ku guuleysanay inaan degmadan u sameeyno dhakhtar degmadan fariisto oo lacagna lagu siiyo oo shacabka reer Baxdo waayo agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulka degmada salaadiinta iyo culimada sharafta kale oo nagala soo qayb gashay munaasabada dhammaan waxbarashada iyo dadweynaha degmada Baxdo oo ka soo galay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa anigu intaan ku ogahay Baxdo Soomaalidu waxay tiraahdaa oday arigiisa ma faala marin booga Baxdo kuwaana badnayn laakiin Baxdo waxa weeye waxa jooga culimadii diinta islaamka ee ilaalinaysa weligeed oo ilaaliyaasha islaamka oo ah barayaashii oo muxuuha iyo muxuuha dhammaantooda waxay ballaarinta iyo ilaalinta diinta islaamka oo wadadii toosnayd lagu socday ilaa afartan iyo dhowrka sano oo muxuuha ay jirtay ilaa bilowgiiba intaas qoloba qoriga u dhiibayso qorbiin bay ahayd waxaan aad ugu faraxsanahay inay saldhig ballaaran oo marjac ah oo aad u ballaaran halka kale inay saldhiggeedii tahay warkeeda waa haynaa waana midda khasabtay arrinta cusub in meeshaan meel amniya noqoto oo canaasiirta Soomaaliya deganaanta u deeday ayna maanta fooda soo galin karinin oo imaan karinin oo og yihiin dad caaqidoodu saafi tahay oo ay tahay nadiif inay halkaan joogaan oo naftooda ku biimeeynaya iska celinaya halkaan inay joogaan taasaa keentay halkaan muxuuha amnigeeda iyo xasiloonideeda iyo naalada muxuuha ka muuqata halkan iyo waxyaabaha badan oo aad sheegateen oo horumarka oo aad dhisateen oo gacantiina waxa saldhig u ah waxa weeye ragga halkaan fadhiya oo ka muuqato waxaan leenahay jazakallahu khayr ilaahay daarta weyn ay kaga jiseeyo oo daarta aakhiraha jiseeyo hayna siiyo
adduunka intaad joogtaan sharaf baad ku noolaanaysaan aakhirana waxa weeye haddee adinkaa culamaha waa taqaanaan albaabada aad tegi doontaan haddii alla idmo waxaan u nimid inaan kala qayb qaadano dhiirigelinta sida aad u dhisanaysaan dhulkiinna iyo deegaankiinna waxaan rabaa inaan xasuusiyo wasiirada wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka caafimaadka meesha tan waa baxda dadkeeda waxay caan ku yihiin inay isku tashadaan dowladda waxay uga baahan yihiin ummadda ilaahay waxaa ka jirta wax qabso oo wax kuga qabtee baa adduunka ka jirta reer baxdo waa dad qabsada inta badan hawshooda waxaa halkaa ku soo marno haddaa aan istaagnay saldhigga booliiska baxda wadarkiisee siduu u dhisan yahay waxaan tegi doonaa isbitaalkii degmadan oo aad yaabi doontiin oo hadda kor idinkaga horreeyey siduu u qaabaysan yahay waxa ka dhimana waa yar yihiin keliya waxay rabaan reer baxdo wasiirka inay ku wareejiyaan isbitaallada wasiirka hoostaga oo ka mid noqdo waxa ka dhimanna aad u dhammaystirto mudana wasiir waxaa halkaan hadda aan dhex taaganahay dhulkii iyo dhismihii loogu talagalay degmada baxdo maamulkeeda iyo managementigeeda in lagu wado waxaad u jeedaan waa wareegsan yahay derbigii waa ku wareegsan yahay halkaa ganjaankii unbaa ka dhiman waxay u baahan yihiin in lagu gacan siiyo xafiisyadii iyo waxa ka dhiman waxa hadda ay dhisteen iyo waxa dhiman waxay dhisteenaa badan mudana wasiir waxaan rajaynayaa haddaan noqonno fadhi muhiima inta qaadano waxa ka dhiman sidii loogu dhammaystiri lahaay inaan ka shaqeyno وسيلة السوق وسيلة عافمات كان وسيلة الأقولي وعرفنا إنه إن شاء الله تعالى ألقهم وموقعنا يقال فيه يغاب كأيهن سووا ونرشة وكذا يسنو هذه هذا مهم علينا ما تقول الإسبيتال في صوب وغيب وغشد كبادنا ومارك إن شاء الله تعالى وهرب صوغاتي وحد دقمة وصلاح باهي كتير غيبي ومهم سنة إن شاء الله تعالى وزير كان عندنا خصوصا لويه بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maantay sharaf weyn inoo ah inaan soo booqannay isbitaalka weyn ee degmada baxdo dhab ahaantii waxaan halkaan uga mahadcelinayaa dhammaan samafalayaashii ka soo jeeday deegaankan ama qurbajoogta ha noqdaan ama kuwa jooga ama kuwa dalka gudihiisa joogaba isbitaalkan quruxda badan ee sida quruxda badan loo dhisay oo ka kooban qaybihii kala duwanaaye isbitaallada guud oo dhan ay ka koobnaayeen waxaa la yaab leh inay dadka isbitaalka intaas leeg ee degmadu iyadu isugu istaagtay oo iyadu dhisatay wasaaraddana waxaan ballan qaadaya anigoo wasiirkeeda wasaaradda dowlad goboleedka galmudug iyo magaalada federaalkaba ana magaceeda ku hadlaya in laga bilaabo maanta aan u istaagi doono in isbitaalkan degmada baxdo uu noqdo isbitaal shaqeeya maadaama degmadan ay hoos imaadaan tuulooyin tiro badan iyo degaan tiro badan oo ilaa 60 tuulo gaaraya marka insha allahu tacaala laga bilaabo maanta waxaan ka shaqeyn doonaa isbitaalkan siduu ku shaqeyn lahaa maanta isbitaalka waxaan soo gaarsiinay daawadani waxaa iskugu jirtaa daawadii naqaska dadka markay qabtaan la siinayay salbutamol ayay ku jiraan waxaa kaloo ku jira daawo antibiotic baa ku jirta iyadana oo lagu talagalay qofka dadkaas lagu daaweynayo COVID-19 ku dhaco daawadaas waa daawadii malaariyada waxaa ku jira qalabkii BPE oo COVID-19 face mask-ga iyo waxyaalaha la midka ah iyo qalabka ay xirtaan dadka ay xirtaan dadka maaragtay bixinaya adeega kahortagga cudurka COVID-19-ka waxaa kaloo la socda 2 mashiin oo kuwii naqaska ah oo kuwii waaweynaayo 10 litarka ahaa oo kuwa ugu fiican oo hadda waddanka Soomaaliya waxaa qalabka mashiinada soo gaaray ka mid ah intaan waa intii ugu horreysa oo dhacdaa maana ogeyn inta saliimu yihiin laakiin waxaa la socdo kale jooglayaashaan inta ka dhimanna waa diyaar waxaan ka codsanay dhakhtarka inuu loo soo gudbiyo isbitaalka inta sariiroodu leeyahay inta dhiman oo sariirahaas aan jooglayaal lahayn jooglayaashooda waa diyaar sida ugu dhaqsaha badan baan ku keeni doonaa hadduu ilaah yidhaahdo